sida ay qoyskan ugu dhacday laba geeri oo ka dhalatay youtuber la soo dhaweynayay. Qoyskii ay ka baxday Allaha u raxmadee Kowsar Cabdi Sheekho oo ku dhimatay rasaas ay isweydaarsadeen ciidamo galbinayay youtuber iyo kuwa diidanaa in lagu soo dhaweeyo Garowe ayaa BBC da u sheegay inaysan ku qancin sida wax u dhacayn iyo tallaabada ugu dambeyn lagu xalliyay xiisadaas, balse si nabadgelyada loo ilaaliyo ay danbideen. Cabdi Sheekho Cilmi Gurey oo ah aabbaha dhalay gabadha dhimatay ayaa xusay in sida wax ugu dhacayn barxadda Garowe ay foolxumo ku ahayd dowladda iyo dadka degan gobolka. Maalmo kadib marxuumadda waa la aasay, waxaana sidaa u sameynay inaysan wax ka weyn dhicin oo ammaanka waxyeelo gaarto. Way ku adkayd qoyska sida wax u dhacayn, kuma qanacsanayn sida la maareeyay, laakiin qaab siyaasad ahaan ayaa laga eegay, balse waxaan aakhirkii u aragnay inay sidan xal ka tahay oo dan ayaan bidnay, ayuu yidhi Sheekho. Kowsar ayaa ku baxday gacanta rag ka tirsanaa ciidamo hubaysay oo 7 bishan is-hortaag rasaas la isku adeegsaday ku sameeyey youtuber Kabtan Ayuub oo xilligaas gaaray magaalada Garowe. Guddiga amniga ee gobolka Nugaal ayaa mucaaradka Puntland ku eedeeyey inuu ka dambeeyey rabshada ka dhacday magaalada, iyagoo dhankooda mucaaradku ay dowladda ku dhaleeceeyeen inay si siyaasadaysan u adeegsatay ninkan baraha bulshada caanka ah. 4 cisho ayay xiisadii ka taagnayd aaska marxuumadda kadib markii qoyskeedu diideen in la aaso inta la aqoonsanayo cidda riday rasaasta gabadhoodu ku dhimatay. Cabdi Sheekho Cilmi waxa uu BBC da u xaqiijiyey in mid ka mid ah murashaxiinta Puntland uu qaaday bixinta magta marxuumadda muddo bil gudaheeda si looga fogaado isku dhacyo kale oo dhacdaas ka dhasha. Allaha u naxariistee marxuumadda ayaa ifka ugu tagtay 3 wiil iyadoo xilligii rasaastu haleelaysay ku sugnayd barxadda Garowe, halkaas oo dhacdadu ka dhacday. Geerida labaad ee qoyska ku dhacday. Qoyska waxaa kale oo ku dhacday geeri kale oo ka dhalatay dhimashada Kowsar, taas oo ahayd in gabar kale oo ay habar wadaageen oo lagu magacaabo Iqro Cabdirasaaq Aadan ay naxdinta geerida walaasheed awgeed ugu dhimatay deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug. Iqro waxay ahayd qof xanuunka sonkorta qabta. Markii ay maqashay geerida walaasheed Kowsar ayay kooma gashay 7 saacadood kadibna waa geeriyootay. Marka waxay ahayd 2 geeri oo qoyskeena xanuun weyn gaarsiiyey, ayuu intaas raaciyey Cabdi Sheekho. Sheekho ayaa sheegay in dowladda aysan qaadin wax tallaabo ah oo dambiilayaasha wax looga qabanayo marka laga reebo liis magacyo ah oo ay sii daayeen guddiga nabadgelyada ee gobolka Nugaal. Guddiga ayaa magacaabay ilaa 6 ruux oo ay xuseen inay ahaayeen kuwa riday xabadda ay ku geeriyootay Kowsar, kuwa kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen. Dallada ururada bulshada rayidka ee Puntland ayaa dhankooda ka hadlay iska hor imatii Garowe, kuna tilmaamay mas'uuliyad darro weyn in muwaadiniin ay u dhintaan si micno darro ah. Sida ay saraakiisha dowladdu sheegeen, rab hubaysan ayaa talaadadii fuulay daba ku yaala bartamaha magaalada Garowe, gaar ahaan agagaarka barxadda, si ay u hor istaagaan Kabtan Ayuub oo ah youtuber caan ka ah baraha bulshada, kaas oo doonayay in dad taageersanay ku soo dhaweeyaan magaalada. Ciidamo la socday ninkan ayay rasaas isweydaarsadeen, taas oo ay ka dhalatay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh. Dowladda ayaa ku eedeysay mucaaradka inay ciidamo hubaysan ku dhaxaystaan Garowe oo ay ku khalkhalgelinayaan ammaanka, sida uu xusay taliyaha ciidanka booliska Muumin Cabdi Shire. Waxaan qaadaynaa tallaabo kasta oo aan awoodno si aan ugu hortagno inaysan falalka lidiga ku ah ammaanka u dhicin, sida dhacdadii lagu dilay gabadhii miskiinta ahayd oo aan wax galabsan. Mana ogolaanayno in ammaanka la khalkhalgeliyo, ayuu yidhi taliya Muumin.